waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan 1.4.1 File Explorer angelina. File Explorer, you can view and organize files and folders waxaa ka organize garan kartaa using adoo isticmaalaya built-in application known as built-in application. Built-in waxaa la dhahaa applicationada ku imaada Windows-ga built-in shayga duu asaga ku imaada lagu soo saaray built-in uu ku dhisan yahay ku dhex dhisan yahay known as waxaa loo yaqaanaa File Explorer loo yaqaanaa call Windows Explorer in Windows 7 and earlier versions. How to open a File Explorer cell for? Number 1, click File Explorer could for an icon on the taskbar and double click any folder on or double click see any folder on your computer. Marka File Explorer saa soo kicino baraadkiisa in soo dhaxgelinayna. File Explorer waxa la soo kiciyaa click see file icon kan oo hoos saaran oo taskbar ka saaran ee jaalaha blue isku jiro double click see ama folder kale soo saaran laba jeer jugsi si uu soo kaco marka hadda waxa waaye aan qaybtan baraadka arkayna si uu soo kaco wakaas File Explorer soo kacay File Explorer arkaysaan waa kana juwansiino noo soo kacay File Explorer markaas la dhahaa File Explorer kaas la dhahaa good creating new folder se loo abuuro folder cusub you can create abuur karta any number of folders tricks of folder aragta and even xitaa store folders folder waxa ku haydin kartaa inside other folders folder kale subfolders loo yaqaan soo sheegnay here is how to create halkan waxa yaala si loo abuuro a new folder ay si loo abuuro folder cusub halkan practical soo gelina insha Allah go to the location add meesha rabto folder kana ku abuurtid where you can want to create a new folder then right click a blank area meel banaan ku dhufo on the desktop. When drop down menu opens markuu soo furmo select new then click folder type a name magaca ku qor for the new folder oo bixi and then press enter folder abuurayna right click la folderka abuurnay mugajina fiisan bixin folderka magaca bixina kadib enter leh practical kala inta la soo gelina insha Allah to rename a file or folder halkan soo gelinaysa se loo magacaabo file or folder right click file or folder that you want to rename and then click rename type the new name and then press enter kadib enter riix to delete a file or folder see loo delete galaya baraadkiisa arkayna saan insha Allah right click the file or folder that you want to delete and click delete to move copy and paste file or folder se loo paste garaya open the location that contains open steps waa kana marka baraadka arkayna insha Allah steps waxa waaye open for the location that contains the file or folder you want to copy ina copy saarato. Number 2, right click a file or folder ku dhufo and then click on copy or cut kadib click si leh open the location where you want to move or store the copy fur meesha arabto ina u move gareyso ama ku hayso copy-ga right click on empty space meel banaan ku dhufo the location ki ku dhex jira then click paste leh then the copy of the original file ka hore soo copy original kiisa or folder ki is now stored hadda waxa lagu kaydiyay in the new location measures file extension maxaa la normally each file kasta should have extension ayuu leeyahay provided by the file name masina provided or seen by the file name file magaciisa for instance ahaan for file name it file name magaca school.docs the word school is the file name ereyga school waa magaca fileka and the .doc is the extension one a period dotkaas is usually waxaa loo isticmaalaa to separate in lagu kala reebo lagu kala sooco the file name and its extension file name extension kiisa marka la dhaho file name extension kiisa markaan dhahno waxaa waaye waxaan sameynaynaa fileka namekiisa iyo waxaan israacinaynaa file halkan ku abuurnay filekan
marka macluumaada noogu qoran assalaamu calaykum CS and IT aan leeyahay meelaan ku qoray kadib fileka marka waxaan u bixinayaa school so example wuxuu bixiyay school docs kan magacii fileka waa kanna maxaa waaya extensionka nooca uu yahay filekan nooca uu yahay kuu sheegaysaa type file good dadkaasna waa lagu kala reebaa identifies waxaa caddaynaya the type of file nooca fileka uu yahay the following table shows wuxuu kusinaa some examples of different file extensions .exe maxaa waay executable waa sad abiyaa loo isticmaalaa .txt maxaa waay text waay waa la yaqaana wixii qoraalaa loo isticmaalaa .docs or .pdf maxaa waay document waxay documentiga loo isticmaalaa .htm or ama .html waxaa loo isticmaalaa hypertext markup language hypertext markup language waxaa waaye waa luqad ka mid ah luqadaha computerka ee loo isticmaalo in lagu design gareeyo website-yada layoutka website-yada in lagu design gareeyo hypertext markup language I hope inaad baran doontaan insha allah markaa kusoo biirtaan jaamacadda .gbeg .jpg .png .gif extensionadaas ayagana filekays nooca oo jpeg iyo jpg iyo png iyo .gif haddaa aragto file magaciisa intaas ay raacsan tahay waxaa ogaanaysaa filekaas inuu yahay sawir image .bbt or .bbtx bbtx ay raacsan tahay waxaa waay powerpoint .xls or ama .xlsx haddaa aragtana excel inuu yahay arkaysaa filekaas .pub haddaa aragtana publisher waay staging file or folder using the seed box in laga raadiyo see loo raadiyaa folder ama file in the seed box see loo raadiyo seed boxka waxaa lahaa meesha markaa focus work aan furno meesha wax laga raadiyo marka meeshaan practical soo gelina insha allah the seed box is عفوا براتكada qaybta stageka soo gelin doonaa qaybtan raxitaanka horeeyo the seed box is located wuxuu ku yaalaa at the top of variety folder of every folder kasta meesha ku topkiisa ku yaalaa meesha ugu sareyso library the seed ama library the seed box looks for text wuxuu raadinayaa qoraal uu raadinaya in the file name magaca fileka ku dhex jira contents ama waxyaalaha ku dhex jira macluumaadka ah in the file properties ama propertieska astaamaha fileka uu leeyahay to see saa u raadina file or folder by using the seed box anoo isticmaalin halkan practical soo la soo geli insha allah type a word qor or bat a word qayb ereyga ka mid ah in seed box ku qor at the top of the every folder or library as you type saa qorto the contents of the folder macluumaadka folderka or library filtered ayaa laga soo bixinaya reflected each successive character you type xarafka qorto waa laga jawaab celinayaayo marka xaraf qorto xaraf ogaa lasoo qabanayo good halkan waa arkaysaan how to exit a program that isn't responding see loo xiraa ama looga baxaa program aanan jawaabeynin markaas aan shaqaynaynin oo shaqadii joojiyey if a program haddii program on your computer stops uu joojiyo responding jawaabta you can end the program waa dhameyn karti solve by using task manager adoo isticmaalayo program baa soo kicisay markaa kirkirkasta uu ku shaqayn waayo maxaa sameyn inaad iska xirta artaa task barkaa right click ku dhehaysaa task manager aad doorane kadibna waxaa leeyahay end task open task manager first fur by right say u fure by right clicking or right click and end area ku dhahayo on the task bar and then click task manager ku dhufo or by pressing control by this will skip then click an application tab application ka ku dhufo click program that is not responding program ka then jawaabin ku dhufo then click end task zero cycle bin wayahay recycle bin waa meesha oo fileska aad furtay ay galaan
file alla fileka aad tuurtid meesha u galo waxaa loo yaqaanaa recycle bin. Good. When you delete markaad delete garaysa file from your computer markaad ka delete it's actually either xaqiiqdii just move it waxaa loo dhaqaajiyaa la geliyaa to recycle bin where it's temporarily stored taasoo si kumeel gaar loogu store gareeyo lagu shubo until the recycle bin is emptied ilaa recycle binkii la mariyo oo eer u noqdo mid mar u noqdo. This gives you waxay ogsiinaysaa an opportunity fursad to recover aad dib ugu soo celin karto soo recover garan karto accidentally deleted fileskii si lama filaan ah u tuurtay and restore them aad dib ugu soo kaydin karto to their original locations goobahoodii marka hore ay ku yaaleen meelay ku yaaleen. How to recover files see loo soo recover gareeya and folders from recycle bin halkan practical loo baahan insha Allah. To restore saa usoo restore garanaya file or folder haye right click dheh file ku dhufo or folder in the recycle bin and then click restore ku dhufo. maxaa arkaysaan markaan soo dhex galnay aan ku dhufanay to restore all files aan usoo kaydinana all foldersna first make sure iska hubi that no files are selected inaysan wax file ay ku dooneen then kadib on the toolbar click restore all items toolbarka adoo dhex joogto waxaa ku dhufanaysaa all items haddii aad rabtid waaye inaad waxa file ku jira recycle binka odil aad dib usoo wada celiso. Deleting tuurida permanently files la tuuro waa yahay deleting tuurid waay fileskii la tuuro permanently si toos ah loo tuuro from the recycle bin. waxaa kala jiro file temporary in loo tuuro iyo in la toos loo sii tuuro. When you delete the file markaa folder markaad delete garayso aad tirtirtid it's usually moved caadiyan waxaa lagu shubaa to the recycle bin to recycle binka so that you can restore file or folder sidaad awgeed marka folderka waa soo celin kartaa later goor dambe if necessary haddii laga marmaan uu noqdo filekan folderka. To permanently remove files si toos ah uga saarto fileski or folders ama folderski from your computerkaaga and reclaim any hard disk space they were using you need waxaa u baahan tahay aad dib u soo ceshato spaceki ay ka isticmaalayeen you need waxaa u baahan tahay to delete inaad tirtirto files or folders from recycle bin aad ka tirtirto. You can delete waa delete gareyn kartaa waa yahay individual fileskaan hal waa u delete gareyn kartaa from the recycle bin waa ka delete gareyn kartaa or empty entire recycle bin at once ama hal mar aa recycle binka aad dhigi kartaa waa maran yahay aad tirtiri kartaa. You can permanently delete file from your computer without sending it first to the recycle bin. mararka qaar waxaad samayn kartaa fileka ama folderka computerka ka tuuri kartaa adoo aan recycle bin marinayna toos u bixinayo. By deleting the file or folder while pressing shift plus delete daa qabato toos u baxayaan recycle bin waxaa ma jiraan. In recycle bin gudihiisa marka to permanently delete a file or folder saa u tuurta kow si aa u sii tuurtid click on the folderkaa rabta inaad tuurto oo recycle bin ku dhex jiray click si kadib press delete riix then click yes qoraal ku soo qora are you sure ma hubtaa ku leeyahay yes dheh. To delete all files in the recycle bin dhammaan soo delete garaysana baraadkeeda halkan waa jirtaa. On the toolbar click empty ku dhufo recycle bin then click yes ku dhufo. You can empty the recycle bin without opening it by right clicking on the recycle bin and then click empty the recycle bin. macnaha adoo aan right click waxaad dhihin empty recycle bin ku dhufanay waa dhammaantiis way baxayaan. sawirka waa arkaysaan empty recycle bin properties. Good. waxaan filayaa in ay fahanteen oo si fiican ay la socotaan. Lesson 2 casharka labaad learning objectives ujeedooyinka loo baranayo casharka marka learning objectives ujeedooyinka loo baranayo at the end of the lesson dhamaadka casharkan
the learner ardayga should be able waa inuu awoodato kow produce inuu soo saaro simple documentiyo fudud with a notepad oo soo saaro as basic text editor. Identify inuu caddeeyo and use isticmaalo file inuu isticmaalo edit wax ka bedelo and format as well as view menus in the notepad inuu fiiriyo fileka menuga uu leeyahay notepad inuu isticmaalo. Use paint inuu isticmaalo to edit waxa uu bedelo insert soo gala text crop u jaro resize cabirka u bedelo save image save gareeyo. Draw basic shapes soo sawiro basic shapes shapeyo asaasi ah and reformat uu dib u format gareeyo imageyo. Capture annotate save and share screenshot inuu soo qabto wareejiyo markaas dhaqaajiyo save and share gareeyo with snip and sketch tool asoo isticmaalayo. Open images inuu furo to edit waxa uu bedelo using snip and sketch tool inuu soo furo oo snip and sketch toolkaas oo sawirka waxa uu bedelo. Have you ever heard maqashay user one of the following applications ana isticmaashay ama la isticmaalay notepad maqashay calculator maqashay paint and snip sketch maqashay? If yes, explain why these applications are important to in your day-to-day activity. Haddii aad maqashay yes tahay cadday sababta oo ay muhiim ugu tahay applicationada muhiim ay ugu yihiin shaqada maalmeedkaaga day-to-day activities. Good. Overview. An application also known as waxaa loo yaqaana a program is a type of software. Application also known as sidoo kale loo yaqaana a program is a type of software qayb software ka mid ah that allows you ku ogolaanaysa to complete tasks shaqooyinka inaad dhamaystirto ku ogolaanaysa on your computerkaaga. Windows come with many built-in applications you can use. Windows wuxuu ku imaaday many built-in applicationo badan oo built-in ah oo asaga uu la imaadayba oon lagu shubin oo aad isticmaali kartid. Maxaa ka mid ah kow 2.1 notepad ka mid ah notepad application ka mid ah. Notepad is a basic text editor waa qoraalka editor waxaa la kan wax edit gareeyo marka waa application qoraalka lagu edit gareeyo asaasi ah can be used waxaa loo isticmaali karaa for creating lagu abuuro simple documentiyo fudud or for creating web pages ama web page in lagu abuuro and any other kind of file with a given extension ama file nooca kale noocu doono ha aadee takado extension siinayo. Notepad-ka muxuu awoodaa inaad ku sameyso website-ka layout-kiisa HTML-kii tag aad ku diyaarsid kadib .html aad ku save gareyso uuna ku soo kacay HTML isu bedelayo oo ku sameynay .php aad ku save gareyne PHP file noqonayo. Marka adiga shaqada rabto textigaaga ku haweysanaysaa then file extension ka siinaysaa kaliya. Marka application oo very important waaye qofka computerka rabo inuu shaqooyin ku qabto shaqo maalmeed uu ku qabto very important applications waaye oo loo baahan yahay inaan ka faa'iideysano insha Allah tacaala si shaqooyinkeena aan ugu qabsano oo performance-keena uu kor ugu kaco. Starting notepad see loo soo furaa halkan marka notepad see loo soo furaa barnaamijkan soo gelinayna. To open notepad select the start button dooro type notepad ku qor in the text box select notepad dooro waa kana xagga ku soo baxay from result click see kadib notepad-kii uu soo furmay waa kana. Good. Using file menu of the notepad. Notepad-ka markuu soo kaco wuxuu leeyahay file edit format view iyo head intaasaa ku taalo. File-ka marka maxaa ku dhex jiro file menu waxaa ku dhex jiro new open save as paste up print exit. Middle muxuu qabtaa marka aan fiirino marka new is user new waxaa loo isticmaala to create in lagu abuuro new file cusub. Shortcut for this option-kan waxaa loo soo gaabin karaa new haddaa ku dhufto jug aasiiso new ku soo baxaya. waxaa kaloo ka fudud Ctrl+N control oo keyboard ku taala iyo enter waxaa isla qabanaya control aa qabanaya kadib +N aa qabanaya Ctrl+N markaa qabatid waxaa waaye uu ku soo kacay. Good. Open maxaa waaye open waxaa qabad is user waxaa loo isticmaala to open previously saved documents waxaa loo isticmaalaa in lagu soo furo document hore loo save geliyay for reading akhrin or modifying wax ka bedelid. Shortcut for this option si oo loo akhriyo wax lagu bedelo. Shortcut for this option shortcut-kan idin wuxuu noqonayaa is
control plus o control plus o open macna save maxay qabataa save is used to save waxaa loo isticmaala to save current document to documentiga hadda in lagu save gareeyo so that it can be accessed later or changes we made can be saved mar danbaa la isticmaali karaa ama wixii changeska aan sameyna la save gareyn karaa waayahay shortcut for this option is control plus s control plus s taa qabat maxaa waay wixii waa ku save gareysmayaan waay oo aad ku modificationka ku samaysa save as maxaa waay is user waxaa loo isticmaala to save a current file fileka had aan hayno cusub in lagu save gareeyo waa loo isticmaalaa which is already saved kaasoo hore loo save gareeyey with different name may waxaa la sameeyaa labo waa loo isticmaalaa marka u horeyso fileka aad save gareynayso waa loo isticmaalaa labo waxaa loo isticmaalaa save aska in lagu save gareeyo filekan oo hor u jiray laakiin location kale iyo magac kale inaan u bixino for example waxaan rabnaa filekan ay ku qoran tahay assalaamu calaykum fs faculty of computer science and it waxaan rabaa inaan koobiyeysto iskuul had u baxsan maho isla filekii aan save dhahayo save asaan dhahaya save as markaan dhaho macluumaadka isagoo ay ku qoran yihiin haddana halkan ugu save gareysmaya macluumaadkii oo isagay ku qoran yihiin waxaa bixinaya mu.x waxaa bixinaya mu.x aan bixinaya good waayahay saas waxaa loo isticmaala marka fileka in lagu save gareeyo currentiga with different location format saving or documents or saving document for the very first time markooda in lagu save gareeyo loo isticmaala shay taas page set up maxaa waaye maxaa loo isticmaalaa is user waxaa loo isticmaala to set change page properties in lagu bedelo propertieska uu pageka leeyahay like sida paper size warqadda cabirkeeda orientation warqadda ay tahay haddii tahay portrait hadday tahay landscape marginiska cabirada in laga bedelo narrow iyo moderate iyo header and footer headers and footers in loo sameeyo print maxaa loo isticmaalaa is user to print in lagu daawaco ee current documentiga hadda aan hayno shortcut for the print command is waxaa waaye shortcutkan wuxuu noqonaa control plus p control plus b exit is user waxaa loo isticmaala to terminate notepad in looga baxo notepad shortcut for this command waxaa alt plus f4 alt f4 haddaa qabato uu ka baxaya wixii uu hayay waay good waxaan filaya si fiican ay la socotaan oo aad ka faa'iideysan doontaan insha allah macluumaadkaas si faahsan loo bayaaniyey insha allahu tacaala using edit menu of notepad edit menu hadan in la isticmaalo menuska u lahaa uu hal usoo qaadanaya macnaha undo waa ku jirta editka undo saa u isticmaala undo is user waxaa loo isticmaala to cancel your last action in lagu cancel with the program shortcut this waxaa control plus z waxaa samaysay qalad yaraa gashay inaad soo celisaa rabtaa undo aa dhehe ama control plus z riixi cut is used cut waxaa loo isticmaalaa cut is used waxaa loo isticmaalaa to move select text in lagu dhaqaajiyo text ama qoraal dooran shortcut this command shortcutka is wuxuu noqonaa control plus x daa dhahdo oo wad baxaya copy is used waxaa loo isticmaalaa to copy select text from one place to another place copy waxaa waaye qoraalkaad inaan qaadno oo meel kale ku save gareyno marka tii hadda aan sheegayna oo ahayd inaa current save as hadda aan isticmaalayna oo labadan file waa nooca copyga ka mid ah oo save as iyo copy loo isticmaalayo waay marka filekan macluumaad ku qorna inaa filekan kale haddana aan ku qortid isagoo ku qoran yihiin kii horena uu ku yaalo meesha while using loo isticmaala original text remains at its place inuu siisu iska ahanaya shortcut for this command is control plus c haddaa dhado hawshaas oo ku dhacaysa best is user best waxaa loo isticmaalaa to insert previously copied or cut text at cursor point best waxaa waaye copy iyo kad labada waa la shaqaysaa qoraal haddaad soo kad aad soo dhahday qoraal haddaa kad soo dhahday meeshuu ka baxaya good bas haddaa dhahdo meeshuu ku dhigmaya rabo cafwan
bastiga marka copy iyo ula shaqeeyaa cut qoraalada soo cut aad soo dhalid oo control v aad dhahdo best uu ku noqonaya haddii oo copy u ahaa control v aad dhahdana best uu ku noqonaya uu ku dhigmaya meesha aad dhigtay meesha insertion point ama cursor-ka uu tilmaamayana meeshaas uu dhigmaya qoraalka delete maxaa waaye is user waxaa to remove select text from a document qoraal dooran oo in qoraal ka mid ah in laga saaro documentiga waa loo isticmaalaa shortcut of this option shortcutka waxaa rabaa shortcut of this option wuxuu noqonayaa del plus key of the keyboard ina dhix find is user waxaa loo isticmaala to switch term inuu raadiyo within a document laga raadiyo shortcut for this option shortcutka wuxuu noqonayaa control plus f uu noqonayaa control plus f find next waxaa lahay option can also works in the same way once the find comment is given markaan find ay wadato uu shaqeynayo sidaas way replace is user waxaa loo isticmaala to alter text in qoraal uu soo geliyo within a documentiga shortcut this comment wuxuu noqonayaa control plus h go to waxaa loo isticmaala user to go particular line numbers shortcut this comment wuxuu noqonayaa control plus g select all waxaa waaye is user waxaa loo isticmaala highlight whole document in lagu highlight galiyo short control a oo highlight dhammaan ahayd control a oo highlight dhammaan ahayd oo la micno yahay shortcutkeedana control a waayo time and date this option is for inserting in lasoo geliyo current datekaad socdo and time waqtiga in a document shortcut for this option is wuxuu noqonayaa optionkan oo shortcutkiisa wuxuu noqonayaa f5 key ina riixdo this is static value tan waa qiimo static oo sugan oo markaas isbedelaynin waa using in la isticmaalo format menu of notepad in la isticmaalo waayahay word wrap this setting controls wuxuu xukumaa whether text is wrapped into the line haddii qoraalka text lagu soo wada celin lahaa waa the screen in full in notepad markuu full yahay font maxaa waaye this option shows xukusinaya font dialog box kale font uu kusinaya from which you can change ka bedeli karta name farta magaceeda style nooceeda and size cabirkeeda using view menu ina waayahay in notepad view menus in the same stats bar ku jiro user to show inuu waxaa loo isticmaala inuu ku tusiyo or hide oo ka qari stats bar this option is activated only when word wrap option is unchecked marka word wrapka uu tig saarna inuu shaqeynaa biskan zoom maxaa waaye zoom waxaa waaye soo dhaweyn ama sii fogeyn is user to zoom in or out inuu sii fogeeyo document paint ama bilaabeynaa marka paint good painterka waa yahay painter iyo calculator noo dhiman painter iyo calculator aan nooga dhiman unitkan kadib word processing kan bilaabeyna insha allah Microsoft Paint is a simple graphic was editing program or program sawirka waxa lagu bedelo sawirka lagu hagaajiyo include ku jira with Microsoft Windows kamid ah some of the various use isticmaalada kala duwan of Microsoft Paint are cropping images lagu jiro resize in cabirka waxa lagu bedelo rotate image lagu wareejiyo images reformatting dib inoo habeeyo for instance changing GIF ilo bedelo GBE extension kiisa macnaha basic image editing in waxa laga bedelo editing image draw shapes in la sawiro start MS Paint Microsoft Paint in la bilaabo oo la soo kiciyo to start Paint si la soo kiciyo halkan practical la soo gelina insha Allah select the start button dooro type Paint in the search box select Paint from result ka dooro Painter kan oo soo kacay waa kana Painter-ka viewgiisa good halkan waxaan ku arki doonaa waxa lagu qabanayo cropping jaridda waaye picture using Paint adoo isticmaala si loo jaro in the Paint adoo dood click file menu dooro click open search box and click picture you want to crop then click open crop using the home tab in the image group click select dooro
Click and drag to select area you want to keep the picture and then click crop. Home tab ka tag, image group ka tag, select, click Juxi and drag G to select the area you want to keep. Halkaas inaad ku ilaaliso the picture and then click crop. Click the file menu for point to save as inaad save garayso. Then click picture file type for the cropped picture. Typekiisa C. Type a new file name magac cusub ku qor in the file name box. Then click save. If you can't view haddaan arki karin the entire picture-ka dhammaantiisa waa try markaad isku select a part of a picture qayb ka mid inaad jirto. You want using view tab, click zoom out button ku dhufo until you view the picture. waayahay to resize saa cabirka u bedelno picture using paint anoo isticmaalayna click the paint button ku dhufo, click open ku dhufo, search book for radio and click picture you want to resize and then click open. Using home tab in the image group, click resize ku dhufo. In the resize key dialog box ku soo noqonaya select maintain aspect ratio checkbox. dooro so the resized picture will have the same aspect ratio as the original picture. If you select maintain, you only need to enter a horizontal value with width in agresso or a vertical height in agresso, then the other one is updated automatically. So update greener. Do one of the following in the resize area, then click OK. To resize your picture by certain percentage, click percentage and then enter a percentage to reduce in agresso width by horizontal box. waxaa waaye meesha way kusoo bixi doontaa percentage iyo waxaa ku jira pixels. marka percentage-ka hadaa ku dhufto inta percentage aragti geli kadib okay ku dhufo. To resize picture so specific size, click cabir gaar inaad jirto aragta pixels ku dhufo, then enter geli new width cabir cusub with horizontal box or new height the vertical box. To save the resized image cabirka laga bedelay isaa u save garayso, click file menu ku dhufo, point ku tilmaam to save as, type a new file name in the file name box ku qor and then click save. Insert soo gelino into a photo sawir soo soo geliya halkan bracket leedahay bracket kale soo gelina insha Allah. Click the file menu soo geli and open the desired picture file ku dhufo, adjust the view so the area for text will be visible on the screen. Using home tab, click on the A box in the tourist area while with the cursor draw box around the desired area for the text. Now a text dialog ribbon comes up depending on the picture size. Use font size dooro 36 range and style transparent is best and transparent nooca best any color of your choice nooca aradka dooro karaka. The default is black, kan asalka waa black for the first time marka ugu horeysa. Press waxaa riixaysa skip riix on your keyboard to end this function saa shaqaan u dhameyso and then save it kadib save garay. insha allahu tacaala meeshaan ku joojinayna qaybtaana soo noqod wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan barwaaqo gaarane